waxaa loogu magac daray farta dunida ugu awoodda badan. Irfan Hafiz oo u dhashay dalka Sri Lanka waxaa ku dhacay cudur aan daawo loo haynin oo dhammaan murqihiisa iyo xubnihiisa naafeeyay hal far oo gacan ah maahane. Irfan ma awoodo in uu nuuxiyo xubin aan ahayn farta suulka xigta ee gacantiisa, wuxuuna cudurkani asiibay asagoo 12 jir ah, halka markii uu ahaa 18 sano jirna uu gaaray xaalkiisa meel xun. wuxuu ku aruuray sariirta, waxaana ku xiran aalado ama mashiino ka caawinaya in uu neefsado. dhaqaatiirtu waxay u sheegeen in uu muddo kooban ku dhiman doono, xaalkiisana aysan waxba ka qaban karin. Irfan ma quusan, wax walwal iyo cabsi kalena kuma beermin, wuxuuna go'aansaday in uu dunida raad ku reebo. awoodda kaliya ee uu haystana waa hal far oo kaliya. wuxuu aaminay in uu iyada ka faa'iideysan karo, saameynna dunida ku yeelan karo. marnaba ma dhayalsan awoodda halkiisa far iyo fursadda uu haysto. wuxuu bilaabay in uu qoro buugaag dhiirigelinaya dadka asaga oo adeegsanaya fartiisa. wuxuu qoray buugaag gaaraya 3, kuwaas oo si weyn loo iibsaday, aadna loo jeclaaday. waliba buugaagta oo ku qoran afka Ingiriiska oo uusan u dhalan, isla markaana ku noolayn meel looga hadlo luqadaasi. Irfan waxa uu gaaray heer lagu magacaabo Silent Fighter and Computer Warrior, farta aamusan iyo kombiyuutarka walwalka badan. Irfan wuu soomi jiray bisha Ramadaan oo dhan, kamana daalin in uu muslimnimadiisa adkeeyo. wuxuu geeriyooday dhawaan asaga oo 37 sano jir ah. Allah waxaan uga baryaynaa in uu jannada ugu deeqo.